taliyaha qaybta booliska gobolka Saraar Gaashaale dhexe Mursal Xaaji Warsame ayaa xilka u kala wareejiyay taliyaha cusub ee saldhigga booliska ee degmada Oog iyo taliyihii hore oo dhawaan xilka laga qaaday. Munaasabadii xilka ay kula wareegayeen oo ka dhacday magaalada Oog ayaa waxaa ka soo qayb galay maayirka degmadaasi Cabdinaasir Cabdisalaan Ibraahim Shira Afrikaani, waxaana taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Gaashaale dhexe Mursal Xaaji Warsame oo taliyaha cusub u rajeeyay inay xilka ku asturo isagoo taliyihii horena sii sagootiyay. halka kan saaka waxaan ku wareejinayaa halkan waxa weeye saldhigga degmada Oog muddo dheer kulay anigu aan ka soo shaqaynayay taliye ka ahaa ama halkan ha noqoto ama mid kale oo aan ka soo diga roganada hadda maxkamad lagu wareejiyay ha noqotee saaka waxaan kula wareegayaa xilkii saldhigga Oog runtii bedelku hawluhu waa caadi in la isku bedelo xilka hawlaha qaranka taliye saldhiggan halkan isku bedelaynaa hadal dhib badan ma yaalo ciidanka xilkiisii iyo hawshii saldhigga halkan halkii uu ka waday taliyaha saldhigga hore baanu ka sii wadaynaa halkan saaka runtii waa saldhigga degmada Oog waa saldhigyada ballaaran ee qaybta booliska gobolka Saraar buu ka mid yahay degmada Oogna waa degmada runtii caana oo degmada aad iyo aad u ballaaran jid dheerna ku taala runtii saaka taliyihii hore ee saldhigga ya Gaashaanle Yaasiin bile Maxamed oo runtii xilkaas soo hayay muddo dheer saaka waxaa loo kala wareejinayay xilka taliyihii hore Yaasiin bile iyo taliyaha cusub jaamac nama sida runtii waxaan u mahadcelinaynaa taliyihii hore sida wanaagsan habsamida uu noola soo shaqeeyay muddada uu noola soo shaqeeyay nala shaqeynayay aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaahayna waxaan uga baryaynaa ilaahay wax khayr leh inuu meel khayr loogu bedelo taliyaha cusubna waanu soo dhaweynaynaa isagana jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland.